guutooyin ka mid ah ciidamada difaaca ee Puntland ayaa kasoo ruqaansaday magaalada Buuhoodle xarunta Gobolka Cayn waxa ayna soo gaareen jiidaha dagaalka ee Gobolka Sool iyagoo ka mid noqonaya howlgalka Dowladda Puntland ay ku wajahayaan xoreynta magaalada Laascaanood. Madaxweyne xigeenka Puntland oo la hadlay ciidamadan ayaa ku soo dhaweeyay furmaha dagaalka isagoo sheegay in ay gudanayaan waajibaadkoodii ciidanimo ee ay horeba u gudanayeen isagoo sheegay in la difaacayo dalka. وإذا سود ويننا حنقول سود ويننا كل يلاب وحنقول سود ويننا مقالة مدحري دلكة وجد أنه الدولة دي وحبك ما معنا وتدري قاله برلمان كيو عيد بدي سراكين سراء بولان لما أنتوا وايدين سفيهين وايدين كم هاد علينا يعني الله قبل أبو إن شاء الله بإذن الله تعالى سين هرب أقول هذا اللي عندما بولان باتي هويان يا أحيدنا وحويان أنا عمرتي يكلا دبرينتي عيد النمو الحق أكون شوكتين والحق أن الله يمنسان إن شاء الله بإذن الله تعالى سؤال هذا إن شاء الله خير ونقنسا وبالله التوفيق. cutubyadan ciidamada ah ayaa u ruqaansaday isla maanta bajiidaha dagaalka ee tukaraq waxaana ay si toos ah u tagayaan difaacyada ciidamada difaaca oo ay ka mid noqonayaan amarada ay ka helayaan generaalada hogaaminaya ciidamada difaaca Puntland. Bushra Galaasa TV-ga iyo raadiyaha Dowladda Puntland jiida hore ciidanka difaaca Dowladda Puntland ee tukaraq.